السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهانتين به ملكستو جوكتان كسو دوادا وركا قلمني التلفزيون كه JMM وحاني ورمي دونتا أنا جوا إسرائيل إبراهيم هذا نسرهبي قضبض وركا بدر كورونا وحا كمدا توبرka hogaaminta xisbiga barwaaqo ee gobolka Afdheer ayaa ka furmay magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer. Buundada weyn ee isku xidhi jirtay magaalada Qabri Dahar iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Qoraxay oo muddo xidhnayd oo shaqo ballaaran ka socota ayaa kormeer lagu soo sameeyay. madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa furay shir lagaga hadlayay waxqabadka sanad miisaaniyadeedka 2017 ee wasaaradda dalxiiska iyo qorshaha wasaaraddan ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona haatan ugu soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. توبرka hogaaminta xisbiga barwaaqo ee gobolka Afdheer ayaa ka furmay magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer. Faafahinta warkaasina aan gudubno. توبرka hogaaminta gobolka iyo degmooyinka ayaa waxa ka soo qayb galay afayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Xasan wasiirka xafiiska dhowrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada deegaanka iyo komishineerka ka hortagga musuqa dawladda deegaanka Soomaalida. توبرkan hogaaminta xisbiga barwaaqo oo furay afayeen ku-xigeenka baarlamaanka deegaanka mudane Ibraahim Xasan Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Afdheer mudane Maxamed Shuubow Maxamed ayaa socon doona muddo 4 maalmood ah waxayna hogaamintu qaadan doonaan casharo kala duwan oo la xiriira xaaladaha isbedelka ee dalka iyo deegaankaba. buundada weyn ee isku xidhi jirtay magaalada Qabri Dahar iyo degmooyinka gobolka Qoraxay oo muddo xidhnayd oo ay shaqo ballaaran ka socoto ayaa kormeer lagu soo sameeyay. Faafahinta warkaasina aan horey ugu soconno. wasiirka xafiiska jidadka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Idriis Muuse Cabdi hogaaminta gobolka Qoraxay maamulka magaalada Qabri Dahar iyo maamulka degmada Qabri Dahar ayaa soo kormeeray shaqada buundada halka ay marayso maadaama buundadu halbowle u tahay isla markaana sahlayso adeeg bixinta iyo isu socodka gaadiidka iyo bulshada. mudane Shaafi Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Qoraxay oo kormeerka kadib warbixin naga siiyay buundada ayaa sheegay inay xukuumaddu deegaanka Soomaalidu ka soo jawaabtay codsigii hagaajinta buundada oo bulshadu baahi weyn u qabtay ayaa tilmaamay in shirkadda dhismaha howlaha biyaha ee deegaanka Soomaalidu oo dadaal iyo awood gelisay ay meel wanaagsan marinayso iyadoo ku rajo qabta inay ku soo afmeeri doonto waqti kooban. madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa furay shirka lagaga hadlayo waxqabadka sanad miisaaniyadeedka 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya ee wasaaradda dalxiiska iyo qorshaha wasaaraddan ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya. Faafahinta warkaasina aanu talawno. mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa furitaankii shirkan ku sheegay in kulamada noocan oo kale ah in deegaanka lagu qabto ay faa'iido weyn ugu fadhido deegaanka isla markaana ay ka turjumayso nabadgelyada iyo xasilloonida waqtigan ka jirta deegaanka. muddooyinkii ugu dambeeyayna uu deegaanku noqday goob loo xusho shirarka kala duwan ee heer qaran. madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in isbedelka ku yimaaday dhinaca dalxiiska wuxuuna sheegay in deegaanku wax badan laga qabtay dhanka dalxiiska hoteelada taasoo ay keentay in meelo badan oo adduunka ah looga yimaado deegaanka. dhanka kale Marwo Salaamid kaasa wasiirka wasaaradda dalxiiska ee dalka oo ka hadashay furitaankii shirkan ayaa tilmaamtay in sanadkan 2017 shaqooyin gundhig u noqon kara horumarka dalxiiska la qabtay isla markaana xoog la saaray dhanka isku xidhka iskaashiga iyo wada shaqeynta iyadoo intaasi raacisay in sanadkan cusub ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya iyadoo ka duuleysa siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dalxiiska ay fiiro gaar ah siinayaan sidii dalxiiska dalku u noqon lahaa mid kaalintiisu ay sareyso. shirkan ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta heer federaal iyo kuwa deegaamada dalka ayaa noqonaya mid muddo 2 maalmood ah socon doona.
daawadayaal waxaa si toos oo la socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMN waxaa idin waramaysay anigoo Isra Ibrahim Aadan Israhabi intaan warka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa aniga bahdayda sidaas iyo amaan Allah